wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta Soomaaliland ayaa daafurtay mashruuca xog reeb oo ah barnaamij lagula soconayo ama lagu ilaalinayo laguna kormeerayo danta guud ee leedahay dawladdu sida dhulka iyo waxyaabaha kale ee danta guud waxaana loo sameeyay inuu gaaro hawsha kormeerka danta guud loo xil saaray iyo lambar laga soo wici karo call center-ka unuga degdeg ee hawshaasi qaban doona oo ah 9550 waxaana munaasabada daafurka mashruucaasi ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maayirka dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay mashruucan agaasimaha wasaaradda hawlaha guud aragti xil gudasho oo waajibaadka sharci marka uu ku saaran yahay waxa muhiim ah xilka gudato waxa la mawraan noqotay marka inaynu aragtida xil gudashana aynu qaadano iyadoo ujeedada ugu weyn tahay laba qodob in la helo aakhirka ka qayb qaadasho bulsho oo bulshada Soomaaliland wasaaraddu dhinaceeda ay gaarsiiso inay ka qayb qaataan ilaalinta danta guud iyo dhowrsanaanta xogaha ku saabsan danta guud qofka muwaadinka waxa xaq loogu leeyahay inuu ka qayb qaato dhismaha dalkiisa iyo ilaalintiisa sidoo kale isaguna xaq buu ku leeyahay dalka labada xaqna inay iswaafajino wasaaraddu doorkeeda ay qaadato deedna la helo dadka qayb qaatayaala oo diyaar u ah inay noqdaan ka qayb qaatayaasha ama ilaaliyaasha danta guud in la helo dhankooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Hargeysa wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland marka inaynu helo unug heegana oo 24 saacadood la soo wici karo oo gurman kara oo danta guud ee dayacmaysa halka ku qaban kara cid ku farxay wadanigu ku farxaya marka anagu dawlad hoose ka ahaan oo ku farxayna arimaha isaanu isugu duweyno in information ku wadaagayno anaga iyo wasaaradda hawlaha guud shirar baa ka dhalan doona waa ka wada hadli doona dhibta dadka abuurawa dadka shacabka iyaga ana ugu qaylo badan markaba soo qayliya nin kasta wuxuu doonayaa wadada inuu rumitir soo galo hadhoon wuxuu leeyahay dawladdu wuxuu ka qabay wadooyinka baa caynkan isaga ku durkay kuwa lacagta haystaan ugu dhib badan waliba nimanka lacagta haysta waa ku isticmaala fankooda inay wax dan guud ama ku qaataan ama wax dan guud ku xilibaan ama wadaha noqoto ama dhul dan guud noqoto ama waa cid lacag haysta qofta yar waxa ma galo runtii waxa sharaf ah inaad kala soo qayb galo munaasabadan qiimaha leh ee lagaga tashanayo ama lagu ilaaminayo ilaalinta danta guud arintaas oo muhiim ah muddo badan baan ka shaqeynay hay'adaha samafalka mararka qaar kood markaan soo helo mashruuc ummadda danwa ayaa waxaan u waajiray meel laga dhiso baahidina way taala ama ha noqdo isbitaal caafimaad ama ha noqdo iskuul dhulkiina dad baale dhul aan inta ishaadu muuqato qof baa sheeganaya marka in laga tashado waxaanu haysanaa la ilaaliyo iska kaashadaan hawlaha guud iyo duqa caasimadu maadaama balbeesha badan caasimada ku nool yahay adeeg badan ay u baahan yihiin iyo wasaaradda arrimaha guduhu aad baan u soo dhaweynayaa ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Cabdirashiid Jacaale Qambi ayaa isaguna madashaasi ka hadlay barnaamijkan call center-ka ama xog reebka oo la idin sharxay oo number 1 laga soo sheegayo wixii dalka iyo dadka dhisme dhul arrin ku saabsan laga soo gudbinayo taas oo shaqo joogto ah oo 8 saac 10 saacadood leh imika wixii ka bilaabma oo ah xog reeb numberkiisuna yahay 9559 ka lambarka isticmaalkiisa oo ah arrimaha dhulka guryaha wax kasta wixii la xiriira iyo kormeerka afarta waaxood magaalada Hargeysa iyadoo gobolladoo dhan loo qaybin doono sida maapka halkan ku sawiran ee aad aragtaa sheegayo aan u sameynay shaqaale u gaara Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa